السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وانا دي السلام يا خياري وحان دي رجيني يا خير كوسو دوادا مبتخي حب العين من دي جيتشن انت عصوب ما انت كو عصوب channel كا صوب وقتي حب العين من دي جيتشن سبسكرايب تا نلو اوغادا لايك شير كومنتينا وحا تعيشين ندي سو سمينو cuntoyinka aad jeceshihiin hadday kaga gata hadday macaan tahay idinka commentiga halka hoose ku soo reeba maanta casharka ama cuntada aan maanta samaynayaa waxa weeyaan lasagna marka waxay ka kooban tahay intan bay ka kooban tahay intaana marka guud gelin aan idin si yara kala sheego waxay ka kooban tahay waxa ku jira boolka waxa ku jira waxa weeyaan waa digaag aan soo raqay waxa digaaga waxa ku jira kaaro kamsir toon iyo barbarooni intaas bay ka kooban tahay duqada laga sameeyo hilib waa intaas halkana waxa ku jira kilo basala xabo sidoo kale kilo halkana waxa xawaashiyo qof walba كل حواشي ضد ما وضع على قف بينتو جعلي هاي إلا ميلها مركا وحوين أنا قاعد سديد حواش هالكن نقط كانوا ملح تنوا قرقر أما قصاع تماندو قف بسلو قرمايو مركا وحي أسفهم وينان كومنتي قاعد يقصر ريب دونتان وأنا قاعد يبدي كسر جواب دونا ويكتشاهد صار دونا waxay ugu jirtaa saliid bay ugu jirtaa qiyaasta kulli qof walba isaga garneed ku darsanayo saliidan isticmaalayana waa saliid saytuun bastada lasagna laga sameeyana waa tan cheese-tuna waa taas taban isticmaali doona marka waan bilaabaynaa casharkii hadaba aan guda galno waxaan ku shubay distida imka saliidii baan ku shubay waxaan hor shiilayaa basasha ديسترين كسليدي iyo basashii marka waxa yara sugayaa inta bunni noqonayso yara bunniya imku ma ku shubo imka basashii iyada sidaas bay diyaar ku tahay ma rabo in aad ma bunni u sii noqoto way casaatay ka ku darayaa in xalana duqadii ku darayaa waxaan ku shubay duqadii marka in yar baan yara sugayaa inay xal raahda qalasho iyaduna mud yar bay lahayd marka in yar baan sugayaa inay yara qalasho حبوبها قرقرتها سي أقدر ياسين مشين في ولا قانتيو هذا يبقى في عم بيقول قبضتي waxaan soo ku shiilmayaa digaagii iyo basashii marka mood yar ku leeyahay waxaan rabaa inuu qalalo moodka yar u baabao wax yar bad sugaysaa marka saas oo kale ugu ridayd digaaga dabka u saartay
digaag isagoo qalalay ma waxa qoyaan badan waxaan ku darayaa markaa xawaashiyadii milixdii iyo xawaashiyadii waxaan kusoo diyaarsaday ku darayaa waxaan sidoo kale ku darayaa tamaandhadii qasaacdiina waan ku darayaa habuubtii aan soo dhaqay waxaan ku darayaa in yar oo biyo ah waa nusba koobkaa nuskii weeyaan imika 15 daqiiqo way dhamaadeen wayna qalashay oo budkii uu ka qalalay markaa iyadu sidaas ay diyaar ku tahay ninkana waxaan sameynaynaa markaa suugadii hore diyaar bay tahay waxaan sameynaynaa in yaroo kale soos oo loogu talagalay in lagu qooyo hadhow toolabaad arki doontaan imika halkan waxaa igu jira maxaa la dhahdaa badhar ama subag maajariina ilaa waxaa weeyaan maqaacada aan hayo oo laba ah marka iyadoo ay yara dirto imika tan anigu aan haysteen isticmaalay waa maajariinta mumtaasta weeyaan haddii aanad haysan adigu saliid baad isticmaali kartaa saliideena cuntada caadiga ayaad isticmaali kartaa ama loobaka waxaan ku darayaa 4 maqaacadood oo taasa أكثر مقاعدات باخد عليه أو دقيقة مرتاح ونسوي علاقة يعني الدقيقة دي هي ماتشينتي كاني مكسوطة باخد عليه عانو انتا وحوية 3 كوب أيام بيوجه لتشيكا 3 كوب عانها باخد عليه marka waxaan ku darayaa waxa weeyaan hiriri basbaas hiriri iyo filfil si ayna markaa u qabdoobin walaaq intay adkaanayso soo adkaanaysaa daqiiqdii iyo caanihii iyo subagiyaan isku daray maajarinti markaasi ayna u qabdoobin inuu kuskuusu yeelan waa inaad walaaqdo intay soo karayso intay adkaanayso way soo adkaanaysaa markaas sidaa la diyaar ku tahay iyadu adkaatay wayna kartay 10 daqiiqo ayaa ninka sidaa u walaaqayay markaa saas bay diyaar ku tahay mana adka mana jilicsana iyadoo ka baxdaynaya markay soo diyaar wareegnay qaybta saddexaad oo intii dambeysay marka saxniga ma ku diyaarinayaa saliid yar ayaa marinayaa si ayna hadhow hore igaga dhigin
sameeyaa suugo yar oo kale oo khudrad aan dhimanin. Marka halkaasaan doonaya inaan ku qoysto. Waxay ka kooban tahay waa kaaroodi, anyaro kariye, basal yar iyo xabuub, beans iyo barbarooni. intan waxaa buuxinaysaa marka dabaqyada laisku saaro inay kasoo dhex muuqato. waa khudrad aanan shiilin oo iyadoo sideediya. waxaa ugu hooseynayaa duqada. hilibkii digaagii markaa waad fidinaysaa, dad kala bixini. waan dhigay, waxaan ku sameynaya in yar oo cheese ah. marka hoostii baan ka wada mariyay. in yar oo kale ayaa waxaan kaga sameynaya dusha suugadan yar kalena in yar baan dusha ka marinaya. haddaad ila socoteen iminka suugada aan marinayo waa daqiiqdii iyo caanihii iyo maajiriintii aan dabka saaray aan sameeyey. markaa waxay ka caawinaysaa baastadan ilaa ma karsana inay jileec noqoto xilli tole. markaa waxaan ku darayaa in yar oo cheese ah. haddana hilibkii digaaga saaray, digaaga la saaray in yar. moodka iyada xoog ma baahnin, in man kaga soo qaadanaya. waan iska reebayaa moodka. cheese baan hadana ku shubayaa. ku dara cheese sidaa dabaqay koowaad baa diyaar ku ah. haddana kii labaad baan sameynaya sidoo kale ayaan marinayaa. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. waan diyaariyay waan dhameeyay sidii la socoteenba waxaan gelinayaa ovenka 40 daqiiqo ku jiraysa salaadii baa taagan salaadii duhur inta marka ilaa 40 daqiiqo ay iskaga jiraysaa anna hawlahayga kala soo dhameysanayaa waxaan dusha kaga yara xidhayaa aluminium si ayna u gubanin ama ayna casaan ma doonayna aad u casaato marka aluminium taatan dusha kaga yara xidhayaa ovenka waa si yara diiriyay ilaa 10 daqiiqo buu ovenku sii sugnaa waa diirimaad marka ama rabo inay dusheeda leesto ay chips markaaba hore ka casaato maxaa la raahdaa waxaan ka yara qaadayaa haddaba si xagga sarena u casaato aluminiumkan ka furaya ka qaaday aluminiumtii si markaa ay u yara casaato waxaan ku yara celinayaa ovenka imika ovenkii baan kasoo saaray saasay diyaar ku tahay waan goynayaa waad la socon doontaa siday u ekaato maasha allah waxa weeyaan lasaaniyadu waa cuntooyinka casuumadaha marka la diyaarinayo kuwa ugu quruxda badan la qayb ka tahay uguna macaan marka bal aan gooyo ee ila socda akhyaaray waad ku mahadsantihiin daawashadiina sidaas bay diyaar ku tahay waxaan rajeynayaa inaad ka wada hesheen dhammaantiin inta cusub waxaanu leenahay fadlan subscribe dhaha like saara asxaabtiina la wadaaga oo share gareeya wixii feedback ah ama talo commentiga xagga hoose noogu reeba si aad ula socotaan fiidiyowyada aan soo dhigno jalaska ama gambaleelka ku dhufo waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu